السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمانتين صومالي وين ميل والبودوني داد كجوكتان آديات أيان إني جعلهاي آديات أيان إني سلاميا سلامتا كدب أحبتي في الله ولا لهي قالي أهو وحندون يا عاوي إني لقيب صدو أما أن إني غشاكيو قصة كد عضي ويل نول قصة وحي كد عضي ودن كسعودي عربية قصة waxay ku saabsan tahay baarinimada miraha ay leedahay oo dunida aad ku goosanaysid intaadan aakhira tagin waxaan doonayaa dhagihiina ka hor in qulubtiina aad igu kaalmaysaan oo qalbiyada aad ka dhageysataan sheekadan aan inii sheegayo sheekadan waxa soo sheegaya oo soo naqlinaya sheekh oo u warramay wiilka ay qisadu ku dhacday qisadu sidaan bay ku bilaabanaysaa ahibati fillah wiil ayaa wuxuu leeyahay maalmaha kamid ah guriga hooyaday ayaan tagay hooyaday gurigeedii ayaan aaday oo gurigeygan ka tagay saa waxaan arkay hooyaday macaan oo meel fadhisa murugina ay hareereysay ayadoo dhan murugaysan oo murugtu ay aad iyo aad uga muuqato waxaan ku iri hooyo macaan maxaa kugu dhacay maxaad la murugaysan tahay murugta maxay maantay wadadeeda adiga kuu soo gashay maxayse yihiin warqadahan gacanta aad ku haysid hooyo macaan ayaa intay sidaa ii soo fiirisay waxay igu tiri hooyo macaane murugta waxay ii haysaa warqadahan aad aragtid oo gacanta aan ku hayo hooyo waxay ka timid shirkadda korontada waana dhowr bilood oo isgaargaaray lacagta layga rabana hooyo waa 500 oo riyaal aniguna hooyo macaane lacagtaas ma hayo sidaas ayaan hooyo la murugsanahay waliba warqadda waxaa ku qoran haddii muddada la cayime la bixin waayo in korontada la goosanayo hoos ayaan fiiriyay wax yar ayaan fikiray waxaan iri oo hooyo macaanto maxaad u wici weysay oo aad ula xiriiri weysay oo aad ula hadli weysay walaal hebel iyo hebel laga yaabaa inay ku caawiyaan intay sidaa gacanta xabadka iiga taabatay tiri hooyo macaane adigaan kaaga kalsoonahay hooyo macaane qalbigaaga ayaan kaga kalsoonahay ayaga kalmadii ayaa itaabatay hoos ayaan fiiriyay waan damqaday waxaan ogahay dhibka hooyaday haysta intuu la egyahay gurigayga hadda aan ka soo tagay intaan hooyaday u imaanin ilmahayga iyo xaaskaygana wallaahi thumma wallaahi 500 oo riyaal ayaan uga soo tagay ayuu yiri wax shaqana ma hayo wax kaloo meel aan ka sugayo oo iga soo galayaana ma lahan 500na waa 500 oo ilmaha aan doonayay inay bishaan ay ku dhamaystaan oo ay masruuf ka dhigtaan hoos markaan fiiriyay ayaa waxaan isiri war ilmahaaga iyo xaaskaaga miyaad gaajeynaysaa oo aad gaajo ku ridaysaa lacagtan korontada waa la bixin doonaa haddii xataa korontada la goosto maxaa ka macnaa laakiin ilmahaaga yeysan kaa rafaadin xaaskaagana yey kaa rafaadin haddii hooyo se uga tegaysaa intaasoo dhan asaga isla sheekaysanaya hooyo waxaa ku tiraahdaa samarsii hooyaan u soo jeestay hooyo macaanto ilaahay khayr buu ka dhigayaa hooyo insha allahu ilaahay faraj buu furayaa hooyo insha allahu tacaala lacagtan waa la bixin doonaa madaxaan hooyaday ka dhunkaday waana siibtay waana sii cararay ayuu yidhi weeyaan hooyaday gacanta iga daba tiri hooyo macaane maca salaama nabad allaha kugu geeyo gaarigaygaan furaha ku rugtay wadadaan cagta saaray anigoo wadada sii socda ayaa madaxayga su'aal ku soo dhacday oo waxay ileedahay war heedhe haddii qof martiya uu kuu yimaado soo ma aadan martisoori lahayn soo neef ma aadan u qali lahayn soo ma aadan hagaajin lahayn oo ma aadan maamuusi lahayn jawaabtu waa haa markaasaan waxaan isweydiiyey hooyada miyay ka liidataa qofka martiga ah gaarigii ayaan dib u soo celiyey wadadii ayaan ku soo noqday hooyaday ayaa albaabka ku soo gargaraacay
anigoo faraxsan oo qoslaya hooyo macaanto warqadda keen ilaahay ha kaa raali noqdo hooyo macaan ee warqadda isii ma uusan oranin anigaa dhibaatada ila soo raasataa biil walboo la bixinaya anigaa ila soo doonataa culays walboo ku soo fuula aniga ayaad isoo aadaa ma uusan oranin hooyo macaanto khayr allaha ku siiyo waan bixinayaa ilaahay baan ila garabgelaya warqadda isii hooyo macaan warqaddii bay hooyadiis ay siisay wuu soo qaatay warqaddii gurigii ayuu yimid markuu warqadda soo qaadanayo ma oga inuu akoon Allah jalla wacala inuu wax dhiganayo akoon wixii la dhigo ay ziyaadaan inuu wax dhiganayo ma oga gacanta markuu sida uga soo qaaday oo guriga uu tagay 500 oo ku qornayd warqadda ayuu soo bixiyay isla 500 uu haystay ayuuna ku bixiyay ilmihiisu ilaahay bay leeyihiin xaaskiisa ilaahay bay leedahay wax guriga u yaala iyo wax uu sugayo oo ilaahay abuurtay malahan إلهي سبحانه وتعالى أسجع أياه مهيئ الأسباب أسباب إلهي أسجع أياه ديارنا يا مال بارغاس وضيا آذن وليغا تجين مال وليغا آذن دنكا جلب بالجوجين يا صوبته أرزاق ذا دبا كجسته مالين تاس هبينك وحاس أي دعيان مالنتي كدم بيسي أيا إلهي وحو قدر سبحانه وتعالى إن حفلة لوغيره ويلكي لعكتي بحشي حفلتي أيو تغي حفلتي وحا يمد أمير كميدة ومرادا مقالة سيتو أيا يمد markii kafeega la cabo oo la sheekaysto oo la cunteeyo sheeka la isdhax mara xafladaha waa la sheekaystaa amiirkii ayuu ilaahay la kulmiyay ninkan wuxuu ku yiri xaaladaada ka waran xaafadii ka waran meesha degantihiin systemkiina nidaamkiina sidoo yahay ninkii wuxuu ku jawaabay wiilkii alxamdulillah ilaahay waa mahad iska leh ilaahayna wuuna asturay waan asturannahay ayuu hadalka ugu soo gabagabeenayo weeyaan ninka amiirka ah waa nin caqli badan ilaahay subxaanahu wa ta'ala markuu sulta uu ku siiyo ama awood dawladeed markuu ilaahay ku siiyo laakiin caqli uu ka maqan yahay waa musiibo weeyaan laakiin awood dawladeed iyo caqli haduu ilaahay isku ka daro waa nimco ilaahay subxaanahu wa ta'ala ninkii wuxuu fahmay ninkan xaalad adag inay haysato isla markiiba jeebkiisu wuxuu ka soo bixiyay jeeg markaasuu wuxuu ku qoray 50,000 oo riyaal ayuu u saxiixay markaasuu jeebka u galiyay dhabarkana gacanta uu saas ka yiri wiilka xafladii markay dhamaatay ayuu fiiriyay jeegii waxa ku qoran 5 eber 50,000 oo riyaal ayaa ku qoran saqdu habeenku waa waqti dambe dadku way seexdeen hooyo way seexatay isla markiiba wiilkii wuu soo cararay intuu wareeray oo arqaamtii tirada badnayd uu ku wareeray lacagtii ayuu isla markii soo cararay gurigu ku soo gargaraacay hooyadii oo hurdaysa hooyadii baa soo sastay hooyo macaane maxaa dhacay hooyo macaanto wax dhacay khayr ayaa dhacay hooyo macaanto markaa 500 oo riyaal aan ka bixinay maxaa kun kaaga bixin waaya si 100,000 oo isiyo hooyo macaanto baarnimadeedii iyo khayrkan ku falay 550,000 bay hooyo isku bedeshay subhanallah xaaladiisa siday ahayd fiiri iyo sidoo ilaahay subhanahu wa ta'ala dunida uu ugu siinay abaalkiisa jannada ay u dambaysa abaalkeeda weeyaan ilaahay jalla wa ala wala yal markuu ka dardaarmaya waalidka markuu ka dardaarmaya ilaahay subhanahu wa ta'ala waalidka mar walba ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay kaliya caabuda waalidkana wanaag iyo ihsaan u sameey suuratul israa aayad 23 ila mid 24 ilaahay wuxuu ku leeyahay subhanahu وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله حكم سبحانه الله واجب سبحانه السجن ما هنا إن نعدك للعابد إسيدو كلا إلهي واجب كدغي إن والدك إحسان لو سميه أيو أولوك باري لو نقضه لو تجبنا أيو إلهي فر سبحانه وتعالى
labada waalid labadooda ama midkooda haddii agtaada uu waayeel uu ku noqdo, haddii agtaada uu howlgab ku noqdo, ama haddii agtaada ay ku xanuunsadaadoo lixdoodii lixaad ay waayaan, falaa taqul lahumaa uffin, uf ha ku oranin ayuu ilaahay leeyahay subxaana. waxay dhibsadaan ha tusinin, hana guulguulin ayuu ilaahay leeyahay, indhahana ha u guduudinin, ha tusinin inay yihiin culays dushaada saaran oo aad rabtid mar un inuu kaa dhaco, ha tusinin. waxaa ku tiraahdaa mar walba hadal macaan ku dheh, waxaana barisaa ilaahay oo aad ku tiraahdaa yaa allah yaa rab, ilaahu u naxariiso siday igu naxariisteen markaan yaraa. الله سبحانه وتعالى سورة الأنعام إله وحكولي آيات بقول كنتن يكواد إله وحكولي قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إلهي سبحانه وتعالى كان أن إني شيء وحو ربكين إنك حرمي إن أتسقى عدك العابدان أيو إلهي نجا حرم سبحانه وتعالى وحولين أمر يا إن والدكينا إحسان الله سمي أيو إلهي أمر يا سبحانه. سورة النساء إلهي وحكوا يا آيات صوتني اللحاد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. سورة البقرة إلهي وحكوا آيات السديتن يا سدحان وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وحصلوا حكاها الليان oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu mar walba sidaas ugu marayaa oo ilaahay sidaas ugu lamaaninaya tawxiidkiisa إحسان إن والدك الله سميه منزلة درجة أي ليهن ويان وحل الدنيا إن صاحبك إن نقدان قرابة هذا وجوده إن النقدان قفك عشان سنة يصير إن أيها النقدان قفك السفت هذا كواد وقاعدين أيها النقدان نبي قال ودي أصحابتي سمن أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله صاحبتي مدى إذا خالصك مد وحلك دير قفك باك وحقن مبذل الرسول كإلهي قال وحد يصوبنا عليه الصلاة والسلام أمك هو يضع مركز صحابي وحويدي ثم أي محاكسي حيقا قال أمك هو يدا يا رسول الله وفهمي وان قرتي هو يدا وان فهنسنا يا كحيقا قال ثم أمك حدنا هو يدا صدح جرب النبي كل عليه الصلاة والسلام ووح آديات قالوا وهويان حديث عبد الله بن مسعود أورينا أو صحيحين كبخاري مسلم ويسوء أرورينا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحد عبد الله قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى عمل نسميه وح عبادة وح الله وجود وهذا محا إلهي وجود عليه سبحانه. نبي وحي عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها صلاة وقت كذا لتكذا ثم أي محا كحية قال بر الوالدين إن والدين تباري الله نقضى كحتويان. حديث كبخاري مسلم أي ورنيان والنبي وكسنا صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق بالنبي صلى الله عليه وسلم جنة قف عاق عاس الوالدين جنة مقل ويان. إخواني في الله ولا لهك قالق أهو رق إيا الضمر إلهي شرفت سي سبحانه وتعالى والله ثم والله خير من وحاد هيستان انتهو يدا إيا آبها وكل النولي هاي خير من وحا هيستا انت أدوارد كاغا آد هيستين خير إيا وناق إيا أجر إيا بركة نوحا هيستا انتيها بدا آبها إيهو يدا كل الجوغان وهداد كفا إبيسانيسيد وفرصة إلهي أكسي سبحانه وتعالى خير نوحو دمانيا دنبيادا قاركودا وحا لغدافا بارن مدى والدك لغدافا إخواني في الله. إلهي سبحانه وتعالى أن ودوانو بارنما أو بارنما فلينه يدن إيا آبهن الله درادي سانيني جعلهاي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.